dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanada Bushra Sheikh oo u dhexeeya Xaaji Cali iyo degmada Biyacade. Dagaalkani ayaa ka bilowday kadib markii ciidamada deegaanka ay weerar ku qaadeen goobo ay isku aruursanayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana intaasi kadib xigay dagaal xoogan oo ka qarxay deegaankaasi. khasaare kala duwan ayaa la soo warinayaa inuu ka dhashay dagaalka xilligani socda. Saraakiil ka tirsan ciidamada deegaanka ayaa waxay sheegeen in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen xubnihii shabaabka ahaa ay kala wareegeen deegaanka Bushra Sheikh xilli kooxda ay deegaankaasi ay ka waday abaabul weerar ay ku qaadeen ciidamada deegaanka balse iyagii la weeraray. Saraakiisha ciidamada deegaanka waxa ay sheegeen in ay soo bandhigi doonaan khasaaraha maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku gaarsiiyeen dagaalka ka socda deegaanka Bushra Sheikh ee u dhexeeya deegaanka Xaaji Cali iyo degmada Biyacade. ciidamo gurmad ah oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Bushra Sheikh kuna biiray dagaalka qaraar ee ka socday deegaankaasi. Gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka socda abaabul xoogan oo ay wadaan dadka shacabka iyo ciidamada xoogga dalka iyadoo la doonayo in gacanta kooxda Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga harsan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Gulufkani dagaalka iyo duulaanka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa horkacaya saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya, dadka deegaanka oo si iskooda isku abaabulay kuwaasi oo doonaya in deegaankooda ay ka saaraan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo sanado badan maamulayso gacan ku haynta deegaanada qaar ee ka tirsan Shabeellada Dhexe. Zamzam Maxamuud, Home Public Media, magaalada Nairobi.